magaceedu waa Faadumo Faysal Ali Xuseen waxay u guurtay dalka Finland iyadoo kaliya jirta 3 sano waxa ay samaysay shirkad ganacsi oo aad u weyn taasi oo 2 sano gudahood ku samaysay guulo aad u waaweyn mahadsanid Ayub Show Faadumo oo aasaasaha iyo mulkiilaha shirkadda Hoywa oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka kuna taala dalka Finland ayaa shirkadeedu noqotay mid 2 sano oo kaliya ku samaysay guulo ballaaran sababtuna waa tan reasonkan shirkadda Hoywa ee weynaad waxa weeye horta vision baa lahaa markaas waxaan islahaa haddaan wax business sameeyo business qurux badan oo dadka magac fiican yeesho oona dadka oo dhan wada bartaan inaan sameeyo oona shaqaalaha la ilaaliyo shaqaalaha mushaar fiican la siiyo oona maxay ahayd dadka maamulka ku jiraan xukunka ku jiraan dad wada nidaam yaqaana habka loo shaqeeyo oo iyaguna professionalka ka muuqato inay ila maamulaan inshallah sida waan ku dhawaaqay markii dambena waxaan gaaray heer ay finishkuba ay imika aan u sheego habka shirkadaha loo waday iyo successful loogu dhigo Faadumo ayaa noqotay haweeneyda kaliya ee ah madow muslim ah haddana ganacsigeedu soo jiitay bulshada kala duwan ee ku nool Yurub gaar ahaan Finland shaqaalaha haatan ka shaqeeya shirkadda Hoywa ayaa kumanaan kor u dhaafay imika horta waxa shaqaalaheena inta caafimaadka u shaqeyso aan clinic kusman waxa 3500 dhaweeye teamka caadina oo maamulka waxaan nahay imika 13 qof Finland ilaa 40 magaalood baan ka shaqeynaa imikana Jarmalka ayaan xafiis ka furnay arinta xiisaha leh ayaa waxay tahay hamiga Faadumo ee samaynta shirkadani inuu socday in ka badan 10 sano tani waa mid kor u qaaday rajada Faadumo maalintan waa maalintii ugu adkayd nolosheeda maalintii la ii diiday inaan bank account aan furto waxaad markaan laba application samaystay bankiyaasha ugu waaweyn Finland mid baba ii soo jawaabay inta iga soo wacay private number markaas lagu yiri Faadumo waan ka xunnahay kuma furi karno account markaas waa waxay sababtay markaas la yiri background-kaaga wax ka helnay oo mumkidiya markaas ku waan ana bafajacay waxay maxaad ka heshan garaneen markaas naag bay ahayd waxay ku tiri kuma sheegi kareen markaas fahmay sheekadu inay cunsugnimo tahay markaas niyad jabay markaas ku waay hadee wax document cadeena wax qoraal ay soo diray waxa la moogtaa inaan daba galo naagta telefoonka ku dhigtay private buu hana marka qoladii kalena way la soo xidhiidhaan anoo niyad jabay oo isri kale kuwan xataa isku luqad bay ku hadlayaan iska daa markaas ay isri warwar bay ku dhacay Finland la bank account business ma soconaya ma waxay ahayd wax la wadi karo maaha marka alxamdulillah rabbil caalamiin dhaqso intaan internetka galaan soo baabaar waxaan helay bank account oo prepaid ku shaqeeyo oo lacag lagu shaqto ka kaliya ayaa ka shaqeeya Finland kaas baa markaas xareysay oo aan ku guuleysnaa helay Faadumo imika qayb ka mid ah waqtigeeda waxa ay gelisaa sidii ay u caawin lahayd talana u siin lahayd dhalinyarada guud ahaan gaar ahaan kuwa xiiseeya ganacsiga shirkadda ay aasaastay Faadumo maamulaha guudna ka tahay ee Hoywa oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka ayaa haatan waxay samaysay malaayiin dollar muddo kooban taasina waa sababtay in shirkadda Hoywa ay muddo kooban adeegyo kala duwan ka bixiso guud ahaan qaaradda Yurub dhanka kale Faadumo ayaa waxay ku guuleysatay abaalmarinta ganacsiga sanadka ee magaalada labaad ee ugu weyn dalka Finland ee Espoo iyadoo haatan u sharaxan 10 qof ee ugu saameynta badan isla dalkaasi Finland waatan asxaabtaadi aad baad mahadsantihiin aniga laftaygu maanta waxaan ka bartay Faadumo hal shay kaasi oo ah samee waxa aad jeceshahay waayo wax laga yaabaa inaad guulo waaweyn ka gaadho Faadumo aad iyo aad baad mahadsantahay